halkan waa Muqdisho Soomaaliya oo aad kala socotaan BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo hawada si toos aad uga dhageysanaysaan. maanta oo maalin axad ah taariikhda miilaadiguna tahay 29 bisha May 2016 taariikhda hijriguna ay ku beegan tahay 22 bisha 8 ee Shacbaan 1437 waxaad ku soo dhawaataan warkii saacadlaha. boqortooyada Sacuudiga iyo dawladda Iran ayaa isku marila qaabka ay xujayda Iran ku galayaan wadanka Sacuudiga ayagoona sidoo kale isku haya qaabka viisaha loogu dalbayo xujayda Iran. Sacuudiga iyo Iran ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay xiriirkoodii sii xumaanayay kadib markii ay Sacuudigu dishay ninkii Shiiciga ahaa oo lagu magacaabi jiray Nimr an-Nimr oo dilkiisii sababay in ay shacabka Iran weeraraan safaaradda Sacuudiga ee Iran. taageerayaasha musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump iyo dadka soo horjeeda oo gacanta isula tagay kadib markii uu halkaasi booqasho ku tagay musharax Trump. dad badan ee ka mid ah dadka rabshadaha sameynayay ee ka soo horjeeda musharaxani ayaa xiray nawaaxiga xarunta San Diego Convention Center halkaasi oo uu khudbad ka jeedinayay Master Trump ayaa khudbadiisii ku sheegay in uu rajaynayo in uu ku guuleysto doorashada soo socota ee gobolka California oo ka mid ah gobolada ay ku xoogan yihiin xisbiyada ka soo horjeeda dimuqraadiyadda wadankaasi. booliska ka hortaga rabshadaha ee wadanka Mareykanka ayaa dad badan ku qabtay rabshadahani ka dhacay magaalada San Diego ee gobolka California. dadka ka soo horjeeda Donald Trump ayaa sheegaya inaysan marnaba doonaynin in ninkani uu madaxweyne ka noqdo wadankaasi ayagoona sidoo kale sheegay in uusan u qalmin inuu qabto xilkaasi. wali halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. jaamacadda Carabta ayaa shaaca ka qaaday in ay aqoonsan tahay dawladda cusub ee Liibiya. Nabil Al-Arabi oo ah xogayaha guud ee jaamacadda Carabta ayaa sheegay in ay aqoonsan yihiin dawladda cusub ee Liibiya ee uu hogaamiyo Faiz Sarraj. sidoo kale jaamacadda Carabta ayaa sheegtay in la doonayo safiir cusub ee ka socda dawladda cusub ee wadankaasi. dab weyn ayaa qabsaday dekad lagu magacaabo Sidi Faraj ee ku taala caasimadda wadanka Algeria. waxa uu dabka qabsaday dooman badan ee dekada ku sugnaa ayadoona ay damin waayeen kooxaha dabdamiska wadankaasi. dabka ka kacay dekada Sidi Faraj ee ku taala wadanka Algeria ayaa wararku sheegayaan in ay ku sii xoogeysteen dabaylaha ayadoona ay dad goobjoogayaal ah ku soo waramayaan in dabkaasi uu ka dhashay mid ka mid ah doomanka halkaasi ku sugnaa ee motorkeedii qarxay. kooxaha dabdamiyaasha ayaa ilaa iyo hadda isku dayaya daminta dabkaasi ayadoona ay halkaasi ku burbureen 10 doon ee ka mid ahaa doomanka dekadaasi ku sugnaa. wali halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. shacabka ku dhaqan magaalada Mosul ayaa bilaabay inay isaga qaxaan magaaladaasi ayagoo sheegay inay ka cabsi qabaan inay halkaasi ka dhacaan dagaalo xoogan ayagoona sidoo kale u qaxay wadanka ay diriska yihiin ee Suuriya. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in qaxooti badan oo ay tiradoodu ku sheegtay inay gaarayaan 5,000 oo qoysas ah ay ka barakaceen guryihii ay ku lahaayeen magaalada Mosul ayadoona ay sheegtay in ay u barakaceen wadanka Suuriya. madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa maanta ka qayb galaya xuska boqol guurada Verdun oo ka mid ah goobihii sida weyn loogu baaba'ay dagaalkii koowaad ee adduunka ayadoona ay sidoo kale xuskan ay ka soo qayb galayso hogaamiyaha Jarmalka ee Angela Merkel. Verdun ayaa lagu laayay ku dhawaad 3
kun oo ciidamo Faransiis iyo Jarmal isugu jira waxaana xuskaani lagu bilaabay labadani hogaamiye ee ka soo kala jeeda Jarmalka iyo Faransiiska ayagoona u baxdhigay khuburaha Jarmalka Consenfoye ee waqooyi bari Faransiiska. kooxda Real Madrid ayaa xalay qaaday koobka ciyaaraha kooxaha Yurub ayadoona ka badisay kooxda Atletico Madrid. ciyaarahani ayaa qaybtii koowaad ku kala dhamaaday 1-0 ayadoona ay Real Madrid dhalisay goosha koowaad. sidoo kale ciyaarta qaybteedii labaad ayaa ku dhamaatay bareejo oo ay labada koox ku kala haysteen 1-1. labada koox ayaa lagu kala saaray gool kulaad oo ay Real Madrid ku badisay 4-3. waxaana intaas inoogu dhamaaday warkii saacadlaha oo aad kala socoteen BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. ciduu dhaafana waxa ay dib uga heli kartaa barta aynu ku leenahay internetka oo ah www.bss-somalia.com.